galab waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal haatanna hargeysa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa wareegta uu shalay soo saaray ku sheegay in xukuumaddu ay dib ula noqonayso maamulka haamaha shidaalka ee berbere iyo weliba madaarka hargeysa oo xukuumaddii hore ay ku wareejisay shirkada gaar loo leeyahay intii go-aankaasi soo baxay dareelcelinta bulshada ayaa siyaabo kala duwan u cabiray arrintan haddaba go-aankani muxuu ka dhigan yahay se suurtagal ma tahay in xukuumaddu cid kale oo gaar ah ay u dhiibto iyadoo ciddii hore u haysay ay laga qaadayo su-aashaas iyo weliba kuwo kaleba ayaa wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariye waxa uu wax ka weydiiyey jamaal cali xuseen oo ah siyaasi islamarkaana bartay dhaqaalaha muddana dalal kala duwan ka soo shaqaynayay aqoonna ula dhinaca dhaqaalaha runtii anu tallaabada maanta uu madaxweynuhu qaaday waxaan u arkaa mid dhiirigelina oo geesinimo ay ku jirto iyo taxadir weliba madaxweynuhu dee 8 bilood ayuu xukunka ilaa hadda joogay arrinkan haamuhuna waa arrin aan anigu hore aad iyo aad uga hadlay xilligii la bixinayay waxaan ahaa raggii safka hore ku jiray weliba ugu horreeyey ee ka soo horjeestay in haamahaasi la bixiyo sababahaan uga soo horjeestayna waxay ahaayeen un hanti qaran oo aad u ballaaran oo aan la qiimaynin oo layidhi waa la iska wareejiyey adduunka marka privatization la samaynayo waxa ama dowladdu leedahay dad shacib lagu wareejinayo horta hore waa la qiimeeyaa inkastoo xukuumaddii hore ee madaxweyne siilaanyo oo dabcan ka soo jeeday xisbiga hadda talada haya ee kulmiye ahayd ciddii heshiisyada gashay ee wareejisay isla markaana shirkadaha lagu wareejiyey laftooda muwaadiniin yihiinoo runtii qaarkood aan la xidhiidhna oon doonnay inaan wax ka weydiina ay ka cudur daarteen una arkeen weli inaanay joogin goob ay ka hadlaan haddana markaaad qiimayso maxaa isbedelay waxa maanta muuqday waa maxay bay kula tahay adiga ee in gacantii lagu soo celiyo dowladda soo keentay soo dadajisa haamahan dhaqaalo badan baa dowladda ka soo geli jirtay anigu sidaan dee warkeeda ku hayo ama aan ogahay dalkana lagu kala wado waxa weeye kow mid dhaqaale iyo mid security ama nabadgelyada dalka sababtaa marka aad eegtid caalamka haamaha iyo waxyaalaha noocaasoo kale dowladda ayaa gacanta ku haysa oo national security marka waxaan isleeyahay madaxweynuhu markuu dee talooyinkii dadka eegay dhaqaalihii dalka eegay siduu dee u liito oo sicir bararkii marka cirka u marayo dowladduna ay baahan tahay inay wax ka qabato iyo markii uu eegay securityga dalka ayay ila tahay inuu markaa uu sameeyey waxaa kaloo aan kugu daraya markaa xataa la wareejinayay si madmadowa ayaa loo wareejiyey xeer muu jirin oo lagu wareejiyo sababta privatization act wax la yidhaahda baa jira oo ah markii hanti dowlada leedahay marka la wareejinayo waa in wax privatization ama sidii looga dhigi lahaa si gaara loo leeyahay waa in xeeru ka jiraayo oo sharci jira jamaal waxaad dhowr jeer ku celcelisay xagga amniga oo kale wareegtida madaxweynaha ka soo baxdayna qayb bay ka ahayd oo asbaabihii loo cuskanay waxaa ka mid ah arrimaha amniga oo kale amni markaad leedahay maxaa looga jeedaa amni waxaa looga jeedaa shidaalku waxa weeyaan waa aalad muhiima oo dalku dhaqaalihiisu haddaanu shidaalku aanu jirin dhaqaalo burbur baa dalka ku dhacaya national security ayaa ku dhici karaysa for example dalku hadduu dagaalo galo oo aanad batroolkii dagaalka ku gelaysa aanad adigu gacanta ku hayn adigoo dowladdiiya de waxa weeye cid kale ay gacanta kaaga hayso waxa weeye waa dhibaato waa hub oo kaleeto weeyaan marka waa adigoo hubkaaga ku wareejiyey cid kaleeto oo gacanta kugu hayso weeyaan markaad eegto durtaba dareen celintii dadweynaha kasoo noqotay ama bulshada inteeda ka hadasha arrintani waxaa u badnaa inay lahaayeen waa tallaabo la qaaday laakiin walaaca ay muujinay inta badana tahay inaanay noqon kudka guur oo qanjow guur oo inta shirkada laga qaado shirkado kale aan lagu wareejinin arrintaasi markaad ku eegto indhaha dhaqaalaha ama dhaqaalayahan ahaan iyo intaad xogogaalka u tahayba ma kula muuqataa inay jidkaa qaadi karto anigu runtii uma arko madaxweynuhu dee inuu sidaas sameeyo oo runta qaar waan arkayay dadka qaar leh silaayaba intuu ka qaaday total ayuu markii dambana intuu dhowr sanadood haystay haddana markuu dalka ka degayey uu wareejiyey oo cid kale gaara siiyey dee anigu horta garan maayo wax mustaqbalka dhici doona laakiin u malayn maayo madaxweynuhu inuu dee ujeeddadiisu tahay inuu intuu cid ka qaado oo cid kale siiyo dee ummadda arkayso isaga sharaftiisa iyo milgihiisa iyo madaxtinimadiisa midna ku wanaagsan maaha kamana filaayo taasoo kale inuu sameeyo markaad eegto awal waxay gacanta ugu jirta shirkado gaar ah oo maamulayay wareegtada madaxweynaha waxaa ku jirta in lasoo qiimeeyo wixii galay iyo wixii laga dheefayay labadaba maxaa isbedelaya bay kula tahay amnigii waad sheegtay xagga dhaqaalaha maxaa isbedeli karaa waxaa isbedeli karaa berigii anigu aan qiimeynayey hantida beriga anigu aan qiimeeyey oo waxaan ku qiimeeyey si rafli aan u qiimeeyey
waxay guddida dabagalka ee baarlamaanka noo sheegeen berigaa in 24 milyan oo dollar ay ka soo baxaan. inta badan ma aragno riboodyada ka soo baxay iyo waxa dhabtaa ay ka soo baxa, laakiin xaqiiqda haddii la eego inta badan markay asal la qiimeynayo ama hanti la qiimeynayo 10 sannadood inkamkeeda lagu dhuftaa. marka raflid waxay noqonaysay 240 milyan oo dollar qiimo ku fadhiya oo ama kor uga kici karaya ama hoos uga kici karaya sanadkii. haddana waxaa la yidhi berigaa waxaa lagu wareejinayaa 12 milyan oo dollar oo ka yarayd intii dhow sanadkii soo saarayay. waxay soo kordhinaysaa macaashkii ay qaadan lahaayeen nimankaa ganacsadayaashii ayaa ku soo dhacayay qasnada dowladda. waa hagaag dhegeystayaaalkaasi waxau ahaa Jamaal Cali Xuseen oo ah siyaasi islamarkaana aqoon durugsan dhinaca dhaqaalaha, waxaana uu magaalada Hargeysa ugu warramaya wariyahayaga Barkhad Maxamuud Kaariye.